Okay. cashirkan waxa waaye waa Facebook pagekii macnaha aad wax ku xayeysiisa lahayd ama ganacsigaaga pagekiisiisa u samayn lahayd. marka ma rabo inaan sameeyo se pageki loo sameeyaa iyo cashirkan ogaado because waa samaysan kartaa saan umaleyn dad badan ayaa horu sameeya meel kasta geli kartaa sida Facebook page loo sameeyo laakiin waxaan rabaa cashir yar oo muhiim inaan taabto oo very important ah oo dadka si u badan yihiin 99% ay ogeyn. marka kow waxaan rabaa inaan ku tuso haddii aanan lahayn xataa waxaad tegi kartaa facebook.com/bookmarks/pages kadibna create page aa leedahay. marka pagekan yarkaan hadda create gareeyey oo macnaha cashirka inaan sii bobsiyaan rabay inaan waqti in ka lumay marabise loo create gareeyaa looga yaraa waxaan kasoo samaystay canva.com. haddaadna canva.com aqaanin waa meesha oo aad ka samaysan karta waxyaabo fara badan. emailkaygan geliyey kadibna account cusubaan create gareystay kadib meeshaana imaaday. meeshaas waxaan ka sameeyay marka profilekan oo kale hadda oo Facebook profileka oo kale 180 by 180 saasaan dhahay kadibna meeshaan marka imaaday waxaan sameeyey wax badan oo sameeyay tags because markii aan wax isku xiraayo on company ama wax cusub aan probaynayo waqti badan ma geliyo macnaha because dadka waxa waqti ka lumiya waxay yihiin especially marka xataa aad business bilaabaysid waxa waqti ka lumiyo business isku xiraa business plankii wixii inta lagu mashquulo qofka oona horu soconin. marka waxaan rabaa marka waxaan oo kale markaan sameeyo waxaan isku xiraa kadibna hoosh markay bilaabato qof professional ah waxaan ku dhahaa okay waxa ay samaysaa online logo ay samay kan ay samay waa downloadtay kadibna meesha ay soo fuulaba waa kana kan naftigiisana meeshaan aan tagay markaan kaas aan downloaday meesha saareen kan waxaan ku dhahay Facebook meesha isku qoray Facebook cover ku dhuftay kadib midka rabaan ku dhuftay waxa aan rabaan ku qoray waa download gareeyay meesha soo saartay. marka danta aan ka leeyahay taas ma danta aan ka leeyahay waxay tahay haddii ganacsigaaga uu yahay ama dental ahaw ama ahaw dentist ahaw ama dhakhtar ahaw ama marketing ahaw waxaad ahaw magacaaga loogahaaga waa inuu si fiican u soo baxaa sidaasoo kale inuu ka ahaadamaan si oo macnaha pop inuu ahaado inuu soo baxo waay. meeshan coverkanu macnaha waa in waxa aad samayso oo ganacsigaaga uu sameeyo oo cad ee meeshan ka muuqdaan oo brandingkaaga uu saas u soo baxo. labadaas waa horta meel iska saar kadib waxaan danta aan lahay oon rabay inaan meeshan imaatid oo Facebook pagekan inaan sameeyo ugu qasbay wuxuu ahay inaan ku tuso danta aan ka leeyahay meeshan waay because waxaan ma waxa lacagta noo sameynayo. meeshan settingka ku dhufanaysaa saddex wax inaad iska fiiriso waay kow saddexdaas inaan bedesho waay. midda koowaad waxa waaye similar page suggestions meeshay ku qoran tahay similar page macnaha waa pagekaaga lamida oo dadka kaba soo qaad anoo kale marketing aan sameeyaa so haddii aan macnaha qof wax u sameynayo ama client oo kale clientkayga hadduu yahay dentist oo dadka ilkaha ka saara ama afka ilkaha u dhaqa wuxuu raba hado macnaha marka pages aan joogo pages kale oo similar pages oo Facebook oo soo saara ayaa jiro. so marka marketing ama competitorkaaga ama qofka competition kuula jiro kale pagekaaga markuu pagekiisa ku jiro pagekaaga Facebook way tusayaan because similar page waaye. marka waxaan rabaa in competitorka iyo ayna arkin pagekaaga so marka waa ku dhufanaysaa marka ku dhufato untick aa siinaysaa meeshaas kabacdi save aa leedahay sababtoo ah Facebook in macnaha qofka suuqa kugula jiro markii macnaha pagekiisa macnaha adiga pagekaaga customerka markay pagekaaga joogaan oo kale ma rabtid customerkaas inay suggestion pages kale oo dad competition kugula jiro inay pagekooda si aadaan ma rabtid. marka waxaad meeshaas suggestionka horta similar pageka waa socodsiinaya profanity filterkanna meeshaan offka ah strong ka dhigaysaa labo kadib waxaa ku xiga midka saddexaad wuxuu yahay page moderation saddexdooda isku xiran page moderation kana imaanaysaa meesha marka waxa waaye haddii xayeysiintaada ay shaqaynayso kale oo aniga aan kugula jiro suuqa oo macnaha waxa aad gadido kale aan gado ama qof wax kaa gata aan ahay oo macnaha xogo aan ku qanci waayo servicekaaga oo kale waxyaabo waxaa jira dadka ay kusoo qoraan waa tuug scammer waa fake waa blaayo waa kan marka waxaa sameynaya meesha markaa imaatid kow waxaa ku qoran woodadka aad u baahantao dhan aad isleedahay woodkan dadku waa isticmaalayaan woodkan waxa waaye wood oo qofka uu isticmaalayo
hadday noqoto fake, hadday noqoto macnaha waa tuugo tuugo waxay rabtaa waa ciyaal suuqiin, wuxuu rabaa woodka aad is leedahay woodkaasu dadku macnaha ay gelinayaan oo macnaha waa waxaas isticmaalayaan aad is leedahay ayaa gelinaysaa bis scam oo kale aad gelisay meesha kusoo fuulaa fake haddii xataa aad istiraahid waa dadku ay isticmaalayaan waa gelina aadaa leedahay meesha kusoo fuulaa tuug ciyaal suuq macnaha woodkan markuu qofku meesha ku qoro oo commentka uu soo dhaho ma soo baxaayo wuu macnaha gudaha ka celinaya safe leedahay marka woodkaas haddii uu qofka qoro marka scammer hadduu soo qoro ama hadduu soo qoro ciyaal suuqiin hadduu rabo wax rabaa soo qoro haddii marka woodka adiga meeshan woodadka kugu jiro oo kamid yahay commentka ma soo gelayo woodkaas Facebook ka celinayaan ma soo baxayo marka waa aad iyo aad muhiim u tahay waxaa kaloo aan rabay inaan cover gareeyo haddii Instagram-kaaga oo macnaha oo kugu xirnayn oo kale meeshaan ugu connect gareey kartaa connect leedahay kadib Instagram-kaaga username-kiisa bixisa gelinaysaa waxaa kaloo samayn kartaa WhatsApp-ka meeshaan imaanaysaa WhatsApp number-kaaga meeshaan gelinaysaa macnaha dhowti marka xayisiin aad samaynaysid oo kale aad uga dhigtid maxaa la dhahaa call to action oo kale oo ku noqdo WhatsApp si macnaha qofku macnaha inta taabto bis WhatsApp-kaaga toos u imaan karo waxyaabahaas waxaa waaye casharada dambaan insha Allah ku fargareyn doonaa laakiinse haddii aad u baahan tahay inaad WhatsApp-ka gashid cashirkaaga page-kaaga ku xiratid sidaan loo sameeyaa meeshana ku dhufatay meeshaas gelisay kadibna ku xiray okay marka cashirka dambe oo kale ku xigi doona isku arki doonaa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته